الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية وزيرك عدالة ماريها هيئة النيرة وزير هذا وزارة أريمها جودها دول جواليدية باش عالم كحمنها كتشوجة مرتي شرفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مدن مدحوينه لبدي بريه هل كان لتشوجي waxaa la qalayay lana qorsheynayay wixii la soo qabtay iyo waxa qorsheysan iyo caqabadaha jiray xalkooda sida hadda muxuu ahaa presentation ka muuqdo kooxaha la isku qaybiyay madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa shirweynihii labaad ee aqoonsiga qaranka imaatinkaaga maanta aad timid waxay fariin cad u tahay sida higsiga iyo markasta ku qorsheysnayd oo dadka Soomaaliyeed inuu gaaro aqoonsiga qaranku meel kasta ha joogeene aad iyo aad baan kuugu amaanaynaa kaagana mahadcelinaynaa runtii waxaan xusuustaa subxa badan oo salaada subaxa oo aad cabashooyin aad aragtay adigoo tilmaamahaas xilliga ila wadaagaya oo muxuu ahaa ama saxid ama haddii ilaahidankeeda leeyahay dhiirigelin in muxuu ahaa waxaas la saxo hanka iyo muxuu ahaa hawshana intaa ka badnaato aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii aqoonsigan qaranku waa abtirsiyaha ummadda Soomaaliyeed weeye abtirsiyo kale ma leh dalkeenu halka magac buu leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa il kama seexato haddii ishaan laga hayo ishaan uma gamayso marka cidna magacyo uma kala bixin karo halka dal weeye waa jiraan kuwo muxuu ahaa xuquuqdii muwaadinka qaranka qofka Soomaaliga uu lahaa kuwa ka leexinaya waa jiraan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa siyaasiga xumi waa dabayl ku dhaafaysa weeye wax macna maalin buu gudbayaa aqoonsiguna qoys kasta iyo qof kasta oo Soomaaliya sida qorsheysan meeshiisii ku gaaraya wax badan oo anfaca oo marka aad dibadaha tagtaan waxa aad tahay aan la garanayn hadii dadkeena Semberi wuxuu ku calaamadeysan yahay amni xumo lagu qabto aadan wax cadayna iyo aqoonsiga wadan waxa tahay lama yaqaano wax badan baa khatar u galaysa marka runtii dawladda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh hogaaminayo in aqoonsiga qaranku uu qof walba helo oo qof kasta uu gaaro dadaal badan baa laga maray waxaan kaloo iyagana ku amaanayaa hay'adda iyo maareeyaha iyo inta gacanta naga siisay oo ama beesha caalamka ama muxuu ahaa dawladda Pakistan iyagana waan ku amaanayaa runtii guul bay inoo tahay dhinac kastaba waxa weeye waad arkaysaan dalkeena quruxdiisa halka markii caasimadda la soo dhigayay quruxda ay leedahay iyo sida ay tahay dad badan baan saa u haysan marka ciyaarka ma gali karno cidii xil haysaana inay dadaal gaadho cidda kale oo muxuu ahaa mujtamaca Soomaaliyeed khaasadan dadka caasimadda ku nool oo wajigii Soomaaliya inay muxuu ahaa iyo meesha la ka akhrisanayna amnigeeda iyo xasiloonideeda iyo horumarkeeda inay ka shaqeyso mudana madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa munaasabadan si aad kelmadaada uga tiraahdo